daawadayaasha qiimaha lahow ku soo dhawaada barnaamijkii aad in badanba sugayseen waa barnaamij ku saabsan midowgii ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanka Denmark iyo furitaankii xarunta cusub ee dhalinyarada ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Copenhagen ayaa shirkan martigeliyay waxayna casumaad u direen walaalahooda degan magaalooyinka kale waxaa halkaas ka soo qayb galay wafuud badan oo ka kala socota magaalooyinka Copenhagen Aarhus Odense Viborg hay'adda qaxootiga xafiiska degmada Copenhagen iyo dadweyne aad u fara badan ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Copenhagen ayaa muddadii 2 sano ee uu jiray gaaray guulo waaweyn guulahaas oo ay ku gaareen midnimo kala dambeyn iyo ixtiraam dhalinyarada oo ka soo kala jeeda gobollo kala duwan ee wadanka Soomaaliya ayaa ku midoobay oo kaliya Soomaalinimo shirka qaybtii koowaad ayaa albaabada u xiraayeen halkaas oo ay dhalinyarada kaga doodayeen magac mideeya maadaama ay ka kala socdaan magaalooyin kala duwan qaybtii labaad ayaa furay qaybtii saddexaad ee ugu dambeysay ayaa mar labaad waxaa isugu yimid xubnihii dhalinyarada ka kala socday magaalooyinka kale iyadoo halkaas muraajaco lagu sameeyey habkii uu u dhacay kulankii maanta hadal badan haan ma buuxsho waa aniga Cabdimaalik Caawil Isxaaq oo idin leh daawasho wanaagsan إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم. أنا وحن كيمان مجال أوغوس عاصمة الغرب في وطن دنمارك وحنات يدخل في السطح لنيرة أنا مجالي وحالها عبد القادر المعتب
waxaan ka tirsanaa ururka international group waxaan ku jiraa guddiga waxaan ka ahay kaashiyeer. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عمر محمد علي حكى ترسلنا هاي international PBOs وحنا هاي contact person كود. إسماعيل حسين حسن وحنا قصة جاليد الصومالي في بقية international club يجيبه وحنا قصة على جود سيد أخفاء. magacayga waxaa ilaadaa Ibrahim Salax intii waxaan ka socdaa ururkan insha Allah ururka lagu magacaabo international club UNC insha Allah waa mahadsantiin. بسم الله magacayga waxaa ilaadaa Cabdishiid Xasan waxaan ka mid ahay Copenhagen International Club waxaan guddiga ku-xigeenka waxaan ku jiraa guddiga horumarinta. بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليال أنا واحد يرى حمزة حسين وحن كم إذا هاي أورك كي كلوب أو كوبنهاجن إسبرشون أحسن حالي ده نصيب ولي فارح waxaan ku tirsanahay ururka Copenhagen International Club waxaan u ahay gudoomiye. waxaan rabaa marka wax yar inaan ka yiraahdo ulajeedada maanta halkan aan isugu nimid oo ah waa marka hore aan ku soo dhaweyno horta wakalahan cusub oo aan furanay maadaama aan isku nahay macnaha hal urur isku danna aan nahay inkastoo magaalooyin kala duwan oo waddankan Denmark ka tirsan aan kala deganahay iyo talabaad oo ah ulajeedada ugu weyn maanta dhismaha urur dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo mid ah oo waddankan Denmark ka jira si loo helo jaaliyad Soomaaliyeed oo danaha Soomaalida macnaha u taagan fikirkan waa fikir markii hore ka bilowday Copenhagen waqti macnaha fogna aan ku fikireen waxaa ilaahay mahadiis ما شو ترجع إن أنا هم ودي أنا مرة لهين هذه له إدمو وحسب أفسر دونا فكرة ذكر وركان سو مركا عن مركي سيهورة سوى الجرا فكرة ذكر دون مركا شو كنا عن دهني عن دهن كان جن مركا هذه له المركا كل كاس عن قندور كان عن كور هالدونه كده waxaan ugu xidhiidhay doonto warbixino iyo war kala qaadasho aad iyo aad ma ugu faraxsanahay inaan maanta arko dad walaalahay oo kala nooca oo kala afkaar oo kala duwan haddana isku keen wixii midnimada ummadda Soomaaliyeed anoo ka imid fiibo ama ka tirsan ururkaas marka mabda'aygu wuxuu aniga wadada raadinay maanta aan kusoo dhacay wadada kale waxaan raadinay maanta aan kusoo dhacay sababtoo waxa way xalay kooda shaqo ka imid 2 saac aan jiftay saakana ku bareeyay ma soo aaday waxa iska arkaysa inaan daacad ka ahay walaalatin walaalayaal shay kala duwan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ururkan kala Soomaalida isku yimaadeen ku midoobeen aan ka soo mid noqono marka inta soo kooyo aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay soo qaybgalka shirkan gundhigiisa ama walajeedada laga leeyahay ay tahay macnaha furitaanka localka macnaha ay sheegay ama xarunta ururka international group xaruntiisa ay tahay Copenhagen oo laamo runtii waddanka meelo ka mid ah ka furay runtii aad baan ugu mubaarakaynaya waxaan ilaahay ka baryay subxaanahu wa tacaala inuu noqdo bidaayo ama bilow barakaysan runtii dadka oo dhan Soomaalida oo dhan ay ku runtii khayrkeeda iyo wanaaggeeda ay macnaha ka qaataan aniga runtii arrin guud ahaan arrinta ku saabsan asaaska iyo sameynta shirkan aad baan dhammaantiisa soo dhaweynayaa oo waafaqsanahay runtii waana qabaa magaalo walbo in sida ay hadda annaga aan odaysa uga socono vibo looga yimid magaalooyin kale in magaalooyinka oo dhan Denmark la gaarsiiyo oo runtii dhalinyarada runtii lagu soo biiriyo